لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولله الحمد. waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya maalinta koowaad ee Ciidul Adxa ayada oo inta badan salaada ciidda lagu tukaday goobaha fakaarayaasha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho kula oogay salaada ciidda Carafo kumanaan kamid ah shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyiin iyo howlwadeenada hay'adaha dawladda madaxweynaha ayaa khudbad u jeediyay salaada ciidda kadib ugu hambalyeeyay dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed munaasabada barakeysan Ciidul Adxa oo ah astaan midnimo isjecel iyo farxadeed mudane Xasan ayaa dul istaagay kaalinta lama ilaawaanka ah ee geesiyaasha ciidamada qalabka sida iyo halyeeyada xaq u dirirka ay ku leeyihiin in si nabad ah looga ciido caasimadda dalka iyo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu shacabka Soomaaliyeed ku booriyay inay garab istaagaan ciidamada taageerida iyo u gargaaridda dadkeena danta yar iyo ka shaqeynta danta guud madaxweynaha ayaa munaasabada ciidda awgeed waxa uu si gaar ah ugu hambalyeeyay taliyaasha sareeyaasha saraakiisha ciidamada iyo qoysaska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ku sugan furimaha dagaalka kuwaasi oo difaacaya qarannimada midnimada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed kuwa tabarta gaaban eeg agoonta eeg dadka maxaan ku raad ducafada ah nooc kastaba gacantoodu gaabatay eeg kaliga gurigaaga yaan laga farxin diriskaaguna ha farxo maalintii farxa waay fariinta labaad ee dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan u jeedina waxay tahay walaalayaal hal lees cafiyo waanta walaalkaaga Soomaaliga ee kala cafi kan dariska kula cafi kii wax ka bi'iyay cafi kii maxaan ku raadey aad wax ka sheeganaysaa cafi kii asigana wax ka sheeganay cafi kaad adigu wax ka sheeganaysaa cafi kii wax ka sheegayna u tag ee cafis weydiiso walaalkay raalli ahaawde walaashay raalli ahaawde intaas waa inta maanta oo kale fursadda ay tahay oo loogaga faa'iideysto maanta waa maalintii farxadda dadka Soomaaliyeed inay faraxsanaadaan walaalaha inay faraxsanaadaan dariska inay faraxsanaadaan agoonta si gaar ah ayaan uga sii ballamaya ayaguna inay faraxsanaadaan intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkeenna qulubtooda inuu isu soo dumo oo ka dhigo kuwii xaqa iyo dariiqa toosan dhammaan ilaahay tuso ilaahay dhibaatada iyo culeysyada amniga allah naga saaro ilaahay maxaan ku raadaan naxariistiisa الله موافق جزاء آدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kastaba munaasabada Ciidul Adxa ayaa si weyn loogu dabaaldegay guud ahaan magaalooyinka dalka waxaana laga dareemay saxmad wadooyinka waaweyn iyo goobaha ay isku yimaadaan dadka